بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal meelad joogtaanba kusoo dhawaada barnaamijka baradiintaada oo aynu dadweynaha su-aalo diiniya weydiin doono insha allahu tacaala barnaamijkeenan wuxuu kaga duwanaan doonaa barnaamijyadii hore kan wuxuu noqonayaa mid online ah oo dad meelo kala duwan jooga in aanu wici doono telefoonadooda insha allah dabadeedna aan weydiin doono su-aalaha diiniga ah oo ay ku guuleysan doonaan abaalmarino kala duwan insha allahu tabaaraka wa tacaala qaabka aan u wici doono wuxuu noqon doonaa annaga oo garaaci doona lambarada iyo telefoon lambarada ay noogu reebeen kadib markii ay isdiiwaan geliyeen barnaamijka baradiintaada insha allahu tacaala barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid markaa waxa weeyaan cod ah oo cod kaliya unbaad nala maqli doontaan oo nala dhegaysan doontaan sababo la xidhiidha maaragtay xagga asturaadda markii hore waxaan ugu talagalnay in uu noqdo muuqaal ama video inaan qof kastaba ka duubno ama si live aan u wareysano insha allah hase ahaatee taasi way noo suurto geli weyday asbaab la xidhiidha maaragtay xagga haweenka oo ka qayb qaadan doona insha allahu tacaala inta badanna ayaga ayaa ka qayb qaadanaya marka si aynu u ixtiraamno diinteena suuban ee islaamka iyo asturaadda wanaagsan ee gabdhaha iyo dumarka muslimaadka ah layna amray inaynu u asturno waxa aynu keliya ku wareysan doonaa telefoonkooda oo codkooda ayuun baynu maqli doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii su-aal markaa ka jawaaba ee ku guulaystana waynu siin doonaa hadiyadooda iyo abaalmarintooda biidni illah jazaakum allah khayran daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميلاد جوجتان بولاليال وين سلامنا كسو دوادا برنامج كبردين تادا او اينو قاب اونلاين ان شاء الله اين تدك ويدين دونو ولا لدينا سؤاله برنامج كبردين تادا قفكي كو غوليستنا ان شاء الله جائزا سين دونا بإذن الله iminka waxaa khadka si toos ugu jira walaasheen shukri soo maaha walaal magacaaga shukri sheekh axmed shukri soo dhawow baarak allah fiik waxaad wadanka halkaad joogtaa walaal wadankeebaad joogtaa sweden ayaad joogtaa maasha allah kusoo dhawow barnaamijka baradiintaada waxaan ku rajeynaynaa insha allah inaad ka jawaabto su-aashan maadaama aad tahay qofkii ugu horreeyey ee barnaamijka maanta ka qayb qaadanaya nasiibkana u helay dad fara badan oo maaragtay isdiiwaan geliyey oo dhowr boqol oo qof ahaa su-aasha ugu horreysa waan kuu fudaydinayaa insha allah si ilahina waxaan kaaga barya inu alla kuu fudaydiyo su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay shukriyey waxaad sheegaysaa nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam marwadiisii koowaad ama xaaskii koowaad ee nebiga uu guursaday sala allahu calayhi wasalam oo ahayd gabadh reer qureysheeda oo caruurtiisa oo dhan u dhashay marka hal wiil laga reebo intii nebigu uu qabayna aanu gabadh kale la guursanin ilaa ay ka dhimatay maxay ahayd marwadaas maxaa la dhihi jiray saxaabiyadda خديجة بنت خويلد ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله وصحوي وجوابت هذا سوى صحوي وحال دي تري خديجة بنت خويلد هو يدي المؤمنين توي لا يرى الله كهذا هم بلي أيام كلنا ما شاء الله تبارك الله هم بلي أيام كلنا أي واحد يقول ستي سؤال هذه إن شاء الله ما دام أي أونلاين تهاي ma arki karayno wixii jaa-isada ahayd ee helaysay walaasheen shukri laakiinse shukri waan kuusoo diraynaa telefoonkaaga ayaad ka heli doontaa biidni illah hambalya saad u aragtaa barnaamijkan shukriyeyn maasha allah waa ku xirana mar kasta waa dhegeysan jiray aad iyo aad maasha allah allah yubaarik fiik waad mahadsan tahay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله kusoo dhawow walaal horta magacaaga ayaad marka hore igu bilaabaysaa magacaagadii sheegaysaa
cabdishakuur cabdiqaadir kusoo dhawow barnaamijka baradiintaada insha allah su-aal diiniyaan ku weydiinayaa haddii aad ka jawaabtana insha allah jaa-isada ayaan ku siinayaa dabcan iminka kala meel baan joognaa saa aawadeed waa lagugu soo dirayaa telefoonkaaga biidni illaahi tacaala su-aasha ku weydiinaya waxa ay tahay cabdishakuuro waxaad sheegaysaa labada salaadood ee nebiga uu yidhi sala allahu calayhi wasalam malaa'igta ayaa yimaada oo istabamara malaa'igta iyo habeenka iyo malaa'igta subaxa ayaa laba salaadood oo ka mid a salaadaha faralka ayay qolana timaadaa kuwo kalena ay dib u noqdaan ma garanaysaa labadaa salaadood sheekhu waaqana xataa xadiis ay kusoo aroortay haye salaad iyo waxa waa salaada casr waa laba salaad isku kala bedelaan malaa'igta oo acmaasha xisaabiso u kaada cabdishakuurow waxaad tidhi salaada casar iyo salaada subax fajr iyo salaada fajriga subaxa waa si wanaagsan waa sax mad xasuusataa marka xadiiska annaga iyo bal daawadayaasha noo faa'iidee laana xadiiskaas anaa ma xasuusto laakiin waxaan waqtina xadiis kusoo aroortay alla sheegayso انت حتى وحنقصوا قاتلوا مع الله شيء ما امزات انا كنت حاجه بهد اديك 18 جرام زي جون جعل حتى حديث سنه قاتل ما شاء الله ما شاء الله ما وسوناكسن ما شاء الله جوابتها بحسنا وصح ويه همبلي ayaan ku leeyahay mabruuk jawaabtuna waa saad sheegtay labada salaadood ee salaada subaxa iyo salaada casarka ayay malaa'igtu yimaadaan oo ay fariimaha ay qaadaan ama ay ka gudbiyaan bani aadamka wixii salaad tukaday iyo wixii masaajidka laga waayeyba ilaahay naga yeelo kuwii ahlu cibaada ah ee intaba fariin wanaagsan laga gudbinayo insha allah cabdishakuur halkaad joogtaa walaalo caasimadan joogaa Soomaaliya Muqdisho si wanaagsan muqdishoad joogtaa waad ku guulaysatay jawaabtaadina sax weeye waad ku guulaysatay insha allah hadiyadaada ama jaa-isadaadana waan kuu soo dirayaa biidni illaah telefoonkaagu sow e v c ma laha lambarkanaan ka adigala hadlaysaa ayuu waa si wanaagsan haddaba lambarkaagaasaan kugu soo dirayaa insha allah hambalya ayaan ku leeyahay mar kale aduu barnaamijka hore waad u daawataa ma filaya soo maha maasha allah ما شاء الله آمين والله ما تسنت السلام عليكم ما مقلي سولا مقعد وصدحان ولا نوشي هذا عبد الجامع kusoo dhawow walaalo barnaamijka baradiintaada halkaad joogtaa walaal okay hargeysaad joogtaa hooda soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka baradiintaada insha allah su-aal diiniyaan ku weydiinayaa haddii aad ka jawaabtana insha allah hadiyad baan kuu soo diraynaa biidni illaahi tacaala su-aasha ku weydiinaya waxay tahay bisha barakaysan ee la idhaahdo ramadaan waa bisha imisaad waxaa jirta 12 bilood soo maaha oo hijriga 12 bilood ayay ka kooban tahay marka bisha barakaysan ramadaan oo dhawaan inagu soo socota ilaahay hayna gaadhsiiyo caafimaad haynagu gaadhsiiyo waxaan ku weydiinayaa bishaasi waa bishee ma bisha 6aadba ma 7aadba ma 9aadba ma 10aadba waa bisha 9aad maasha allah allah ku barakeeyo waa sax weeye jawaabtaad bixisay waa bishaasi waa bisha 9aad weeye miyaad garanaysa mise waad ku nasiibisay maasha allah dhib ma laha haddaba waa yahay waad saxsan tahay insha allahu tacaala waad ku guulaysatay hambalyaan ku leeyahay mabruuk hadiyadaadana waan kuu soo diraynaa insha allah biidni illaah telefoonkaagaad ka heli doontaa insha allahu tacaala waanaad mahadsantahay walaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
walaal ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada adigoo marka hore ku bilaabaya magacaaga. walaal aad u dhawahay magacaygu waa Iqbaal Cabdiraxmaan Xuseen. Iqbaal ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada. halkaad joogtaa walaal? walaal waxaan joogaa Hargeysa. waayahay magaalada Hargeysa ayaad joogtaa. ku soo dhawow barnaamijka baradiintaada. insha Allah su'aal diini aan ku weydiinayaa. su-aasha aan ku weydiinayaa waxa ay tahay waxaad sheegtaa cidda uu yahay ar-ruuxul amiin, ruuxa aaminka ah. marar badan quraanka ilaahay uu ku sheegay nazala bihi ar-ruuxul amiin, ama ilaahay uu baa yiri tanazzalu al-malaa'ikatu war-ruuhu fiiha bi'inni rabbihim min kulli amr. ruuxdaasi waayo ruuxul amiin waxaan isku dayay xamalanayaa malaku jibriil weeyaan. insha Allah sanadkii si wanaagsan ma sha Allah tabaaraka Allah. jawaabta aad bixisay waa صح bay kula timso waa qalad. sanadkii sax la tahay waa sax weeye ma sha Allah. waa sax wad ku guuleysatay hambaliyo. ruuxda aaminka ah waa malaku jibriil, waa malaga sharafta leh ee aaminka ah. ilaahay uu yiri nazala bihi ar-ruuhul amiin, waxa soo dejiyay ruuxii aaminka ahaa oo ah markan malaku jibriil. ruuxul qudusna isaga loo yaqaanaa ruuxa barakaysan. laakiin diimaha qaar baa de ilaah saddexaad ka dhigay oo caabuda wal ciyaadu billah. sida diinta kristanka oo kale way caabudaan saddexda ilaah mid kamid ah. way xasbuna Allah wa ni'mal wakiil. wad mahadsantahay walaalo. wad ku guuleysatay barnaamijka baradiintaada. su-aashaadaasna wad heshay. hadiyada aad xaqa u yeelatayna insha Allah waa lagu soo diri doonaa. telefoonka lagu soo diri doonaa biidnillah. insha Allah ay sheekho maasantii. aduu barnaamijku mid hore u daawatay walaal? fiidiyowada badan ka waan daawadaa in yar dhaftay mooyee laakiin markasta su'aalo badan ka faa'iido wallahi ma sha Allah. ما شاء الله. أدو ما هتسنتهي جزاك الله خيرا ولا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ولا كسر دو برنامج كبردين هذا مقعد أدوك بلابين. أنا أيوة حسن إبراهيم شوفت برعة. هدا القرها. هذا ما هذا نوايا. هذا نو شوفت برعة كس. هذا وايا هذا كسر دو هذا برنامج كبردين هذا إن شاء الله سؤال ديني أنكو الدينية. هدي أتكتش وابتو إن شاء الله. waxaan ku siinaynaa hadiyad baan ku siinaynaa biidnillah. su-aashaan ku weydiinaya waxa ay tahay waxaad sheegaysaa suuradda ugu khayrka badan ama ugu weyn kitaabka ilaahay ee qur-aanka. suuradda ugu weyn qur-aanka, suuradda ugu khayrka badan uguna weyn qur-aanka waa suurad kitaabka ilaahay qur-aanka ka mid ah. 114 suuradood buu qur-aanku ka kooban yahay. marka mid ka mid ah ayaa ah suuradda ugu wada weyn dhammaantood kulligood. ikhlaas. suuratul ikhlaas aad bay u sharaf badan tahay iyaduba, waayo qur-aanka 3 meelood hal meel bay u dhigantaa. boqolkiiba 30% bay u dhigantaa. marka waa suurad fadli badan. laakiinse ikhlaas maaha. ma ku ceshanaysaa suurad kale oo qof dadka muslimiinta ay akhriyaan mar walba suuradda ugu weyn qur-aanka kariimka qof walba xifdisan yahay. marka alxamdu alxamdu magaceeda maxaa la yidhaha? ma alxamdu baa la yidhahdaa? الحمد لله تقانا وسوى نكسى الحمد لله ولا دها ومقعيد يدوي فربدينهن. سورة الفاتحة. ها الفاتحة هي الحمد هي مقعيد بدن وكليلا هاي السبع المثاني والقرآن العظيم أم الكتاب أم القرآن مقعيد يدوي فربدينهن. مركا وصحوي سؤال شاثاس أتكتشوابتي سورة دوغو القرآن هو سورة الفاتحة. sidaas uu sheegay rasuulku salawaatullaahi wasalaamu caleyh xadiis saxiixa uu ku sheegay in suuradda ugu weyn qur-aanku ay tahay suuratul faatixa ee aynu maalintii
akhrino 17 jeer oo waajib ah waad maadsantay walaalo hadiyadaadana waa lagu soo diri doonaa biidnillah waa ku maadsantay inaad ka qayb qaadatay barnaamijka baradiintaada hambaliyo mabruuk baan ku leeyahay jazakallah khair iyo wa salaamu alaykum